sheegay corona dhiigaygu waa nooca waa O amba waa A ama waa B inta badan dadku marka ay u baahdaan nooca uu dhiigu u yahay hadii ay dhibaato dhacdo amba shil u dhaco amba qofku ay dhibaato ku dhacdo xagga dhiiga ah ayaa la baadi gooba leeyahay dhiiga noocaasi baa loo baahan yahay inta dadku way yaqaanaan laakiin halkan amba barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaa arrin ka duwan dhiiga qofka bani'aadmiga ku jira waynu ognahay waa shidaal weeyaan ayuu yahay la'aantiina qofka bani'aadmigu ma noolaan karo balse isweydiintu waxay tahay qofka nooca dhiigiisu iyo xiriirka uu la leeyahay dabeecadihiisa cuntada uu u baahan yahay xanuunada ku dhici kara xataa shaqada ku habboon iyo wixii la halmaala barnaamijkan marka waxaynu diiradda ku saari doonaa haddii la yidhaahdo saddexda nooc ee qofka bani'aadmiga dhiigga muhiimka ah waa A iyo O iyo B A iyo B na way jiraan intaasi xiriirka ay qofka bani'aadmiga la leeyihiin xataa dabeecadiisa marka waxaanu eegaynaa number 1 kow dabeecadaha qofka bani'aadmiga markuu dhiiggii nooca uu yahay dabeecadiisa wanaagsan iyo tiisa xun raashinka uu baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay inuu isticmaalo xanuunada probability ku dhici kara ay tahay inuu ka fogaado shaqooyinka muhiimka ah ee uu baahan yahay waxyaabahaas aynu ku eegi doonaa daraasado badan baa laga sameeyey dhiigga run ahaantii oo fara badan muddo dheerna laga sameynayay xidhiirhka dhiigga uu leeyahay qofka bani'aadmiga ah iyo habdhaqankiisa waxaan xasuustaa muddo sii horeysay dalka la yidhaahdo Japan buug ka hadlaya blood tap iyo xidhiirhka uu leeyahay qofka bani'aadmiga ah buuggaasi waxaa laga daabacay baa la tilmaamaa ilaa 5 milyan oo copy waa sii horeysay ahayd dadka Jabaaniiskana waxa la yiraahdaa aad bay u eegaan qofka bani'aadmiga nooca dhiigiisu yahay si behavior qofka habdhaqankiisa iyo wuxuu ku habboon yahay iyo wuxuu ku xun yahay ay u ogaadaan daraasado badan baa run ahaantii laga sameeyey oo aanan hadan ku soo koobi karahayn caawa dad badan baa ka hadlay hase ahaatee macluumaadkan aan soo gudbin doona waxyi maaha qur'aan amba xadiis nabi waa waxuun noqon karaa amba sax amba qalad laakiin siday u badan tahay weeyaan daraasadaha waxaa laga sameeyey deegaamo kala duwan iyo dadyo kala duwan hadday yihiin dad beeralaya hadday yihiin dad xoolo dhaqata hadday yihiin dad xeebaha dega hadday yihiin dad magaranaysaye reer galbeeda hadday dad yihiin afrikaana madow cadaan ayaa daraasadan laga sameeyey ru'aantaynu soo gudbin doono inta haddaan hordhac ahaan kaga baxo bal waxaan qaadan doonaa nooca ugu horeeya ee dhiiga qaybta la yidhaahdo dadka dhiigoodu A u yahay marka ugu horeysa waxaynu eegi doonaa qofka eeda dhiigiisu yahay waxyaabaha uu ku fiican yahay dabeecadihiisa wanaagsan waxaa la tilmaamaa dadka dhiigoodu A u yahay horta dadka u badan xagga akhriska iyo qoraalka ayay ku fiican yihiin baa la yidhahdaa hadduu qofku A uu yahay dhiigiisu qoraalka iyo akhriska ayuu ku fiican yahay waa dad waxna aada u akhriya waxna qora xagga tiifiyada marka ay daawanayaan baa la yidhahdaa dadka eeda ahi waxay ka daawadaan barnaamijyada in la qososha ah amba kamaradan la yidhahdo hiding camera waxyaabaha noocaas ay ka helaan waxay jecel yihiin deegaanka dabiiciga dadka eeda ahi tusaale ahaan meel dabiiciya oo buur ah oo biyo ay ka soo dhacayaan oo laamaha iyo shimbiraha dhawaqooda ay isu baxayaan oo cidla ah ayay ka helaan meelaha dabiiciga ah dadkaasi inta badan waxa la yidhahdaa dad dhaadhac yar weeye qofka hadduu dhiiggiisu A uu yahay wuu dhaadhac yar yahay maha dadka ku qaldama soomaalida waa dadka yidhaahdo kuma daare hay daarin yacni ma ogola qofkaasi inuu isna wax dadka yeelo isna wax la yeelo waxa kaloo ay dadkaasi ay jecel yihiin baa la yidhahdaa waa dad xarago badan aada u xarago badan dadka eeda waa dadka xaragooda ee ugu xaragada badan waa A baa la yidhahdaa daawada waxyaabaha aan ka sheekeynayo adiga laftiga waxaan ugu talagalay inaad baaritaan ku samaysid haddaad nooca dhiigaagu yahayna waad dareemi kartaa dadka eeda ahi waa dad aada u xishood badan baa la yihahdaa oo khajilaad badan khajilaadu waa xanuun laakiin xishoodku baa la yihahdaa waa sifo wanaagsan laakiin khajilaadu inta badan waxay yidhaahdaan waxa weeyaan waa psychological disease baynu marka qofku bani'aadmiga ku noqon karaa yani wax nafsiyo mushkilad buu ku noqon karaa
laakiin xagga wanaagga waxa la yidhahdaa qofka eedihii markaynu eegano wanaagyada dhiigga eedu waa qof xishood badan weeyaan. dadka eedii waa dadka inta badan ka warwara shaqada u taala. haddii uu caawa ka seexdo shaqooyinkii isagoon dhamaystirin aad buu uga warwaraayo siduu u dhamaystiri lahaa buu ka warwaraa in badan. dadka dhiigoodu uu eedu yahay waxyaabaha kale ay ku fiican yihiin waxaa ka mid a waa dad ballan markuu galo sida ay tahay inuu u uufiyo wuu jecel yahay. ballamada inta badan hadduu galo wuu uufiyaa. hase haatee waxa lahahdaa ma jecla inay ballamada rasmiga ee tooska ay galaan. hadduu galana inta badan wuu fuliyaa baa lahahdaa. xagga marka laga eega IQ-da iyo maskaxda iyo intelligentka waa dadka ugu maskaxda badan baa ugu maskaxda fiican bini aadmiga dadka eeda ahi. dadka eeda ahi sidoo kaleeto waxaa la yidhahdaa waxa ka soo baxa dadka in la yihahdo hogaamiyaasha amba leadershipka. qaybta bida in u iman doono laftigooda leadershipku ka soo baxa, laakiin waxaa la tilmaamaa oo daraasado badan oo la sameeyey ay sheegaan qofka eeda ahi dadka leadershipka hogaamiyayaasha inay ka soo baxaan. waxaa la yidhaahdaa dadka eeda ahi dadka ugu hurdada yar weeyaan. xagga seexashada in yar bay seexdaan 24 saacadood 3 saacadood 4 saacadood 5 saacadood 6 saacadood waa more enough. aad bay ugu filan tahay lahada. aad bay markaa hurdadoodu ma badna. meela gooniyana way ku gamaan, meelaha buuqana kuma gamaan. sidoo kaleeto waa dadka ugu dareenka badan. haddii laga sanqaro isla markiiba buraaruga ayaa lagu tilmaamaa. arinta kale xiisaha leh waxa weeye aan doonaya inaad baaritaana ka samaystaan. waxaa la yidhaahdaa dadka eeda ahi xagga guurka markay noqoto waxa nasiibkoodu ku soo hagaajiya inta badan dumar fool xunxun. dumarka qurux badan nasiib uma helaan. bal taana waad baadhi doontaan idinka laftigiiniyo inay aragtidaas ay sax tahay in kale. waxaa la yidhahdaa dadka eeda ahi dumarkoodu amba xagga maaragtay inta badan kuma hagaagaan nasiibkoodu dad qurux badan oo qolo kaloo iman doonta. qolada ooda markaynu marayna inanu tilmaami doonaa. xaggan haddaba dabeecadaha xunxun ee uu leeyahay qofka eedi waa maxay? intaa aynu soo tilmaanay waa dabeecadaha wanaagsan uu qofka uu leeyahay dhiiggiisu uu yahay eeda, sida ay daraasado fara badan ay tilmaamaan. daraasadahaasi aynu inta badan cuskanayno aynu inoo ah meel aynu noqonayno waxay tilmaamaan qofka eeda ahi waxyaabahu ku xum yahay waxaa ka mid a waa dad aada u cadho badan weeye. waa dad dabeecaddooda aanay wanaagsanayn. waxa kaloo la tilmaamaa dadka dhiiggeedu ee uu yahay waa dadka ugu warwarka badan. warwarkoodu uu badan yahay. waa dad warwar badan oo warwarkoodu uu badan yahay. xataa waxa la tilmaama qofka eeda ay markuu telefoonku kusoo dhaco saa u eego in badan buu ka fikira saatalo qofka kula soo hadlay telefoonku muxuu ku weydiin doonaa. haddii xataa gurigiisa laga soo hadlo waxa ma mushkilad bay sheegayaan. in badan buu ka warwaraa. marka waa dad warwar badan. taasuna waa ta samaysaa in hormoonaad fara badan ay calooshiisa ay ka soo baxdo oo ay raadayso oo xanuunadan aynu tilmaami doono goordhow waxyaabaha sababaanba ka hoosgareeya waa warwarkaa faraha badan ayaa ka mid a. waxaa la tilmaamaa oo kaleeto dadka dhiigoodu uu yahay dhinaca markaynu eegno dabeecadihiisa xunxun waa dad hadday maalan dadka balwadaha hadday isticmaalaan qaad oo kaleeto hadduu isticmaalo amba hadduu bun cabo habeen oo kaleeto ma seexdaan. hurdadu ma timaado. waa waxyaaba la eegay weeye. waxyaabaha qaadku uu ka mid yahay, waxyaabaha uu bunku ka mid yahay hadday ay cunaan waxa laga yaaba hurdadu inaan habeenka aada ugu soo dhicin. haddii ay balwadaha noocaas isticmaalaan waa dadka inta badan la yihahdo waxa ku bata waxaan lahahdo Soomaalidu tahada khayraada iyo waxyaaba caynkaas ku bata. marka raado weyn bay ku yeelataa arrintaasi. waxa inta dadyowga dhiigoodu uu yahay waxyaabaha ay ku xun yihiin oo kaleeto waxaa ka mid a amba dabeecadaha waxna uu leeyahay waxaa ka mid a waxa intaa u dheer waa dad kooban oo aan asxaab badan lahayn. waa dadkan la yihahdo waxa weya waa isolated wey. waa dad aan xidhiidh badan lahayn, asxaab badan lahayn. dad dhexgelitaankoodu ma fiicna. attraction badan ma leh. marka waa waxyaabaha dabaaca ay leeyihiin qofka dhiiggiisu uu yahay uu leeyahay. haddii aynu u yaro gudubno
dabeecado badan oo kale uu leeyahay oo xagga way jiraan laakiin waynu soo gaagaabinaynaa. haddaba aynu bal tilmaamno ilaahay subxaanahu watacaala qofka dhiigiisu ee uu yahay waa maxay raashinka ku habboon ee ay tahay inuu isticmaalo. waayo habdhiska qofka bini aadmiga ilaahay subxaanahu watacaala qof walba sibuu u sameeyey, xikmad ilaahay oo rabbaaniya iska jirtaa. marka dadka dhiigeedu ee uu yahay waxaa la tilmaamaa in dhaayatkooda amba raashinkooda aada loo ilaaliyo, loo kantaroolo. weliba waxa weeyaan waa vegetarian dadkan lahado, waa dadkan khudaar cunka ah weeye. khudaarta ayaa maaragtay jidhkooda ku habboon inay isticmaalaan, iyo dhiigooda iyo habka caafimaadkooda waxa ku fiican inay isticmaalaan waxyaabaha khudaarta ah. sidoo kaleeto waxa ku fiican baa la yidhaahdaa ku habboon inay cunaan waxaan lahahdaa hilibka cad. hilibka cad waxaynu oga jeednaa waa digaaga iyo kalluunka iyo wixii la halmaalaa, inay isticmaalaan baa fiican ayaa la yidhahdaa marka caafimaadkooda la eegayo. sidoo kaleeto raashinada faraha badan ee kala duwan uma wanaagsanaa dadkaasi, waayo calooshooda ciladaha ayaa ku badan. hilibkuna uma wanaagsanaa, hilibkan cas uma wanaagsanaa oo cilado fara badan ayuu ku sameeyaa. marka iyaga waxa weyan waxa ku habboon ee jidhkooda ilaahay subxana watacaala ugu habboon waxa weeyaan waa waxyaabaha khudaarta ah iyo hilibka cad weeye. aadna uma xiiseeyaan dadka eeda ahi hilibka ma xiiseeyaan, xataa caanaha ma xiiseeyaan. way cabaan waanay cunaan hilibka laakiin ma xiiseeyaan, sida qolooyinka soo socda way ka duwan yihiin. way bal aan u gudubo waa maxay xanuunada probability ku dhici kara dadka eeda ahi. daraasadahu inta badan waxay sameeyeen, markii la sameeyey waxaa la ogaaya dadka xanuunka lahada kansarka weliba noocan caloosha iyo ku badan dadka eeday u badan yihin. daraasaa lagu ogaaday. waxaa laga yaaba haddii imanka la baadho dad fara badan 10 qof haddii la baadho oo kansar qabad in 8 ay noqdaan baa suuragala. waa probability wax hadda waxiya maaha baan idin sheegayaa, laakiin waa wax suuragal ah. dadka xanuunka kansarka ugu faraha badan oo ku dhaco daraasado waxay sheegayaan inuu yahay dadka eeda ah. waa dadka calooshoodu ciladaha ay ku badan tahay. xanuunada adigu kuwa ugu badan kuwaas weeyaan. bal aan tilmaamno waa maxay waxyaabaha ku habboon dadka eeda ahi xagga shaqada marka la noqoto shaqo inay shaqeeyaan. dadka xisaabaadka amba bankrisku way ku fiican yihiin. dadka garyaqaan wuu noqon karaa qofkaasi. dhaqaalayahan buu noqon karaa. qoraano wuu noqon karaa. dadka qoraalada ee buwaagta qoraan amba noveliska qoraan way noqon karaan. waa shaqooyinka ku habboon. shaqooyin kaloo fara badan way qaban karaan laakiin shaqooyinka ku habboon weeye. intaa haddaan kaga gudbo nooca la yihahdo bad type a, waxaan u gudbayaa qeybta labaad oo ah b, inagoo aada u soo gookoobeynaa. noocan la yihahdo b bal aynu eegno waxyaabaha horta marka hore ay ku fiican yihiin. dadka bda ahi waa dad dabeecadoodu ay wanaagsan tahay, aad u dabeecad fiican baa lagu tilmaamaa. waa dad dhaqan wanaagsan baa la yidhaahdaa. waxaa la yidhaahdo kaleeto waa qof hogaamin kara wax laftigiisu, oo xagga kaa kala wadaaga dadka eeda ah xagga hogaaminta iyo leadershipnimada uu kala wadaaga baa la yihahdaa. waa dad hogaamin samayn kara baa la yihahdaa. waa dad maareyn kara mashaakilka, mashkilad kastoo kusoo dareysta waa dad maareyn kara. problemiska way maareyn karaan. waa dad wixii mushkilada maareyn kara ayaa la tilmaamaa. waxa kaloo la tilmaama waa dad waxa ay doonayaan gaadha. haddii uu himlo tilmaamsado himlada waa dad xaqiijin kara weeyaan, oo aan ka daalin ama aan dismoral oo kale aanu ku dhicin. halka eedu qofka eedu haddii ay problems kusoo baxaan isagoo doonaya inuu wax gaadho waxa withdrawbu ka sameeyaa, wuu ka tegi karaa baa la yihahdaa. laakiin qoladan baydu dhiigoodu yahay b, waxa ay doonaan way xaqiijiyaan baa la yihahdaa. sidoo kaleeto waxa la yihahdaa waxa iyagu marka tifiyada ay daawanayaan waxay ka helaan wararka baa la yihahdaa. wararka dhaadheer waliba analysiska amba taxliilaad kale muddo dhan bay fadhii karaan telefishon hortiisa oo kolba war iyo taxliilaadkooda uu daawan kara. laakiin qofka eedu intaa ma u dul qaadan kara la yihahdaa. isagu barnaamijyada aan tilmaamo oo kaleeto ayuu iska jecel yahay. laakiin wararka dhaadheer ee falaqaynta leh biidu aad bay uga heshaa baa la yihahdaa dadka uu yahay. saaxiibtinimada way ku fiican yihiin noocani. dadka biidi saaxiibtinimada way ku fiican yihin. waa dad saaxiibtinimo iyo habdhaqan fiican leh.
waa dad naftooda inta badan sharxaba leeda waxaasaan aqaana waxaasaan ahay oo soo saara oo qofka soo saara weeye dadka soo saara muujiya nooca biida ayay ku badan yihiin baa leeda waxay nasiib u helaan xagga nasiibka guurka markay noqoto dad iyo dumar qurqurux badan bay nasiib u heli karaan oo kuwa way kaga duwan yihiin kuwii eeda taasna waa la tilmaamaa waxyaabaha ay ku fiican yihiin amba dabeecado wanaagsan ay leeyihiin haddaba waxaa jira waxyaabo ay ku xun yihiin oo dabeecadaha dhinaca xun ah waa dadka boodada le baa lahdaa waa dad booda leh markiiba xanaaqaya sidoo kaleeto waxa lahdaa waa casabi waa dadkan casabiyiinta ee nerfoska ah ee markiiba maaragtay cadhada waa dad ilow badan baa lahdaa ilowgoodu uu badan yahay waxbuu iska iloobaya waxa laga yaba haddaad la balantid inuu ballankiiba iska iloobo ayaa la tilmaamaa dad aada dhugashadoodu ma badna bay dhahdaan dadka dhugashada badan ma aha aada wax ma dhugtaan sidoo kaleeto waxa lahdaa marka ay wax qabanayaan mas-uuliyad badan iskama saaraan xil badan iskama saaraan wax halka qofka eeda ahi uu ku dhimanayo wixii uu ku fikirayo sila wixii fuli laakiin qoladan waxa lahdaa biid ahi mas-uuliyad badan iskama saaraan wixii ay qabanayaan haddaba cuntada ku habboon waa maxay noocan biid ahi number one horta waxa ku habboon baa lahdaa waxyaabaha caanaha iyo wixii laga dhambaasho wixii laga sameeyo caanaha waa raashinkooda koowaad ee jidhkooda ilaahay subxana wa tacala siduu abuuray ku habboon cuntooyinka midhahaana way u fiican yihiin naftooda iyo jidhkooda habdhiska iyo qaabka jidhkooda waxyaabaha midhaha ee firiga ah kuwaasna way ku fiican yihiin baa lahdaa shaaha oo kaleeto wayska okay baa lahdaa xanuunada ku badan baa lahdaa biida aada hawla yaabina laakiin daraasooyin baa la sameeyey qofkow waad baari kartaa xanuunada ugu faraha badan waa xanuunaha maskaxda iyaga ayaa ku badan nooca biida ah xanuunada maskaxda iyo waalida iyo waxaasa ku badan 10 nin oo waalwaala nimanka haddaynu soo qabano magaalada Hargeysa dhex maraya oo 10 kaba la baadho dhiigooda waxa laga yaabaa 8 inay bi yihiin labada soo hadhayna midna oo noqdo midna eeba suuragala waa wax suuragala waa probability wax waxiya maaha laakiin waa cilmi baadhida noocyadaas waxa ku badan waxa kale oo xanuunkan la yiraahdo ilowgu Alzheimer-ka la yiraahdo waa noocaas biida ayuu ku badan yahay haddaba qolada biida waa maxay waxyaabaha ay ku fiican yihiin shaqo ahaan si uu qofku dee uu soo ogaado shaqooyinku ku fiican yahay horta baadhu noqon karaa dadkan baadhayaasha ah amba cilmi baadhu noqon karaa sirdoon buu noqon karaa wariyuu noqon karaa dadka farshaxanka ayaa ka soo baxa dadka magaranaysaayay ee cilmi nafsiga ayaa ka soo baxa shaqooyinkaasoo dhan kuwa kalena way qaban karaan laakiin shaqooyinka aadka applicable-ka u ah waa shaqooyinka noocaasi weeye nooca ugu dambeeya ee la yiraahdo type O bal in yar iyagana aan ka tilmaamo nooca kani oodu horta waxaa la tilmaamaa lahdaa waa dad kalsooni dheeraad ah leh inta badan self sufficient kalsooni dheeraad ay leeyihin soo kaleeto dadka dhiigoodu ooda yahay waa dad bulshaawiya la yihahdaa xagga bulshaawnimada waa dad aada u bulshaawiya oo firfircoon oo isla markaasi inta badan inay kasoo dhex baxaan dadka ka muuqdaan ayay jecel yihiin waa dadka caanka noqda weeyaan dad caan inay noqdaan oo mujtamaca ay ka dhex muuqdaan ayaa weeye dabeecadooda ay jeceshahay oo waa dad attraction bay leeyihin soo jiidasho waa dad adkaysi badan baa lahada jidhkooda xataa jidhkooda difaacooda adkaysigu u leeyahay waxa weeye xataa xanuunada difaac bay u leeyihin qofka eeda duriga uma adkaysan karo xataa hadduu u yahay laakiin dadka oodahi waa dad adkaysi badan systemkooda jidhka ayaa adkaysi ule baa la yihahdaa waa dad qaabkooda wanaagsan yahay structurekooda amba maaragtay physical appearancekooda aada u fiican yahay oo qaab dhis le weeye waa dad maareeya mushkilad kasta oo ku timaada way maareeyaan waa dad nasiib wanaagsan inta badan aada u nasiib fiican weeye waa dad seexan kara waa dadka ugu hurdada badan baa la tilmaama 24 hours buu seexan kara bale dadka oodahi 24 saacadood buu hurdi karaa haddii durbaan laga agtumo haddii sanqadh kasta ka baxayso meel kastana way ku gamaan baa lahdaa meel alla meeshii uu soo gaadho ku gamaya gaadhigu ku gamayaa meesha shaqadu ku gamayaa dadka xagga hurdada waa ku fiican yihiin hadduu bun cuno hadduu jaad cuno wax alla waxaasoo dhan waxba ka qaadi maayaan soo kaleeto dumarka ugu quruxda badani dadka ooda ayaa guursada haddii la baadho imika dadka ooda ay waa dumarkooda waa dadka ugu quruxda badan yihiin waa wax la baari karo weeyaan
sababtuna waxa weeyaan waa dad habdhaqan fiican lahoo kan eeda ay isagu nasiibkiisu wuu xumaado gabadh foolxun igu soo hagaagaysaa de waa qof dabeecad wanaagsan male waa qof aada u furfuran ma aha marka hal qof unbuu la sheekaysanaya qofka ula sheekaysto nasiibkiisu markuu soo hagaajiyo taasunbuu ku dhacaya halka oodu toban buu isagu la sheekaysan ninkan maaragtay dabeecadda fiican toban buu isku wadaayo mid doono markaa ka xulanaya marka waxa waa dadka ugu nasiibka wadaana xag ugu nasiibka fiican ee dumarkooda ay qurux badan yihiin qof walbana istijaabiyo isbaa haddaad doontid marka theorygan aan ka sheekeynayo amba waad reject garayn doontaa amba waad accept garayn doontaa daraasooyinkana waad akhriyi doontaa haddaba dabeecadaha xunxun qofkan uu leeyahay waa maxay qofka ooda ahi inta badan horta waxay jecel yihiin waa dad ka helaa meelahan xafladaha ay ka jecel yihiin waa dad xafladun buu taagan yahay xidhiidhinta barnaamijyada inuu isagu number one ka noqdo inuu meel walba ka muuqdo waa dadkan ay soomaalidu tidhaahdo isqorka amba guulwadaynta dadka ku fiican baa kasoo baxa baa noocan la yahdo ooda waxa kaloo ay jecel yihiin in ay wax kasta iyagu ay ummadda ka dhex muuqdaan oo sidoo kaleeto lama saadaalin karo dabeecaddooda qof la saadaalin kara maaha 10 qof ayuu la socon karaa oo uu qof walba kula socon karaa wejigu doono marka waa dad aan la saadaalin karin weeyaan inta badan waxa la yahdaa dad waa dadka ugu muranka badan way muran badan yihiin xagga muranka iyo waxyaabaha caynkaasi waa dad aada u muran badan oo inta badan murma oo sheekooyinkoodu muran fara badan bay leeyihiin waa dad inta badan dhexdhexaad ah wax kasta waa ka dhexdhexaad marka which means waxa weeyaan laba qof oo halkaa uma oranayaan war adigaa sax iyo adigaa qalada wax kasta waa ka dhexdhexaad ma kala marka waa qof aan la saadaalin karin weeye haddaba haddaynu eegno waa maxay cunooyinka ku habboon cuntooyinka ku habboon ilaahay ugu talagalay markuu qofku ou yahay raashinka iyaga number 1 waa waxa weeye waa hilibka waa hilib cun waa humuun bay u qabaan oo waxa ugu horeeya marka raashin loo soo dhigo hilib cun weeyaan marka xagga waxay ka matalaan baa leedahay wuxuushta sida dhuurwaaga iyo libaaxa iyo waxyaabaha hilib cunka ay ka matalaan oo waa dad hilib cuna weeye waa raashinkooda ugu fiican weeye ay isticmaalaan marka iyo waxyaabaha proteinska ay ku badan yihiin daadwaay waxa ka soo baxa dadka buurbuuran dadka aadka u buurbuuran inta badan oo weeye waayo xataa stress kuu ka yaryahay mashaakil fara badan male protein iyo waxyaabaha fatiska ay isticmaalayaan marka waa dadka buurbuuranay boqolkiiba inta ugu faraha badan waa iyaga dadka ooda ayuu ka soo baxaan xanuunada ugu badan ku dhaca waxa ka mid ah xanuunada la yiraahdo skin disease-ka waxyaabahan maarta waxa kaloo xiiqda waa xiiqda kaleeto way ku dhacdaa dadka wax xanuunada ugu badan ay leeyihiin haddaba shaqooyinka ku fiican waa maxay shaqooyinka ku fiican waxa kamid ah dadka siyaasiyiinta ee politicianku iyagu ka soo baxa dadka suuqgeynta wax marketingka dadka ka shaqeeya iyagu ka soo baxa baa lahdaa dadka la taliyaashu iyagu ka soo baxa baa lahdaa weliba waxa aan ka sheekeynayno shaqooyinka ay ku fiican yihiin sababtu waxa weeye waxa u suuro gelinaya dabeecadaha ay leeyihiin qofka marketingka ah waad garanaysaa waa qof furfuran qofka siyaasiga ahi dadka siyaasiyiinta politicianku inta badan oo bay u badan yihiin baa la yidhahdaa eegada politician means ma noqon karo xataa leadership bal imanka xataa waddankan haddaynu ku abalay gareeno falsafada noocaasiya ninka siyaasiga maadaama uu wadiga arkaya maanta xisbigan buu ku jiraa xisbigan buu soo baxaya kaasuu gelaya yani waa qof ismuujin badan weeye waa qof dad dhexgelitaan badan weeye waa qof ma garanaysa waa qof flexible ah marka dadka politicianska inta badan waxa la yiraahdaa waxay ka soo waa oobay u badan yihiin waxa markaad ku qiyaastaa dadka inaga dhexdeena ah ee politicianska ah la yiraahdo ooda gaar ahaan oo minus haddii ay hooyadu noqoto oo minus weeyaan oo negative wuu hawl badan yahay waayo adduunyada dadka oo negative way yar yihiin aad buu yar yihiin caalamka oo dhan marka la eego waa wax kooban marka hooyadu haddii la ogaado inay dhiigeedu oo negative u yahay waxa wanaagsan marka ay uur leedahay in la mudo irbad baa markaa lagu mudaa si caruurta looga duwo oo aan caruurta nooceeda yeelan sababta waxa way mushkilad weyn baa dhacaysa oo caruurtu laftigooda inay ka raacaan baa suuragala marka inta badan irbad baa lagu mudaa hooyada oo negative ka ah waana arin aad iyo aad u hawl badan waxa kaloo daraasadaha qaarkood ay tilmaamayaan hooyada ooda ay haddii ay 30 jir dhaafto
inay dhalmadu ku yaraato amba aanay dhalinba. waayo marka horeba daraasaadka qaarkood waxay tilmaamayaan hooyada ooda ahi inay dhalmo yar tahay. marka hadday 30 years ka gudubto 30 sannadood hadday ka gudubto waxa la leeyahay probability-ga u badan inay dhalmaba aanay helin baa suuragala. marka waa waxyaabo daraasaadka qaarkood ay muujinayaan. sidaa awgeed waxa weeyaan waxa muhiim ah xataa ayaa lahdaa dhiigaga qaarkood way istiidaan dadka isqaba dhiigaga qaarkood baa istiidaan. marka dhiigu hadduu istiidan yahay si caruurtu aanay uga soo dhicin gabadha oo waxaa jira dumar mar walba uu ka soo dhaco ilmuhu. marka la ogaado in hooyada iyo aabbahaasi ay kala dhiig duwan yihiin oo dhiigoodu istiidayo soo kaleeto irbadaha lagu mudaa si loo suuro geliyo in ubadka amba caruurta uurka ku jira ay badbaadaan oo nabad qabaan. marka waxyaaba fara badan oo dee cilmiga uu tilmaamayaa jira. dee aragtiyahaas aan tilmaamayo iyo qaar kaloo badani way jiraan. inta badanna dee waxaa aada aqoonta ugu sila waa dadka dhakhaatiirta weeye. intaa haddii aan kaga soo baxo saddexda noocee muhiimka ah. nooc a b yaa jira iyagoo positive iyo negative oo fara badana way jiraan, laakiin inta muhiimka waa saddexdaa nooc weeye. waa eeda iyo bida iyo ooda. sidoo kaleeto waxyaabaha muhiimka ah dhigagu ay go-aan ka qaataan waxaa kamid a qaabku qofka u seexanayo. qof kastoo bani aadmiya waanu ognahay oo imanka qaab gooniya u seexda. dadka eeda ahi qaab seexashadoodu waa qaab yaroo curduduba ahoo intay way isduubaanoo intuu lugaha soo laabo ayuu madaxana gacanta hoosta ka geliya. waa dadka eeda ahi inta badanna iyagoo fikiraya uruursan bay seexdaan balaaday gamaan. qofka ooda ahi intuu dhabarka isu tuuro labada gacmood iyo saa isu kala bixiya baa la yahda ayuu iska gama isagoo markiiba iska gamaya. waa qolada ooda ah. dadka biida ahi iyaduna dhabarka uma seexdaan waxaa laga yaabaa inay ku bilaabaan hurdada intay caloosha u seexdaan lugahana midna uu saa u yaro taago kadibna isna wuu gamaya. laakiin noocan eeda ahi iyadu way mushkilad badan tahayoo sidiisaba dhiigga noocan baa iska problem badanoo si yaroo curduduba ahoo uu isa soo wada koobiya u seexanaya. marka xataa xagga hurdada ayaa uu go-aan ka qaataa nooca dhiiggaagu yahay. waana baaritaankana waynu wada samaynayna daawade baaritaanka waynu samaynayna qof walba waad baaraysaa waxa kan aan ka hadlayo. sidoo kaleeto waxaa la tilmaama xagga timeka marka maamulidda timeka inkastoon jecelahay maamulidda timeka inaynu wakti ku qaadan doonaa oo iyo barnaamij gooniya oo qaabkan ay dadku uga hadlaan buugta uga hadla qaab ka duwan baynu uga hadli doonaa markaynu ka hadlayno maamulidda waktiga oo program dhan buu noqon doonaa. laakiin waxaa la tilmaamaa marka ay noqoto xagga timeka iyo maamulidiisu dadka eedaa ugu fiican baa lahdaa. barnaamij kastaba saad ku arki doontaan sawirada halkan 8 program sida u kala horeeyaan buu qofka eedu mid walba uga soo baxaya ilaa barnaamijka koowaad ilaa barnaamijka ugu dambeeya ilaa ka ugu horeeya sida ugu habboon buu u maamulanaya. halka dadka ooda ahi 8 barnaamij labada maalmood ee ugu dambeeya buu wixiiba hal mar uu dusha kaga dhacaya. qolada biidahi markuu barnaamij iyo shaqo uu qabanayo kolba intuu in yar qabto ayuu ka tegayaa si googoosa ayuu shaqooyinkiisa u qabtaa. waxa iyadana la yaab leh noocan leehdo a b ee isku jira 8 halkaa waad arki doontaa markaynu ka hadlayna time management waad arki doontaanoo maalinta ugu horeysa ayuu si madaxa u wada dhiganaya wixii oo hal mar buu doonaya wixii inuu wada qabto oo markaasuu culays xaddhaaf u isa saaraya. marka xagga time managementka laftigiisu ama maamulitaanka waxa go-aan ka qaataan nooca dhiiggaagu yahay ayaa go-aan ka qaadanaya. marka daraasooyinkani waxyaabo fara badan ayay go-aan ka qaataan oo noloshaada ah. marka waxa muhiim ah qof kastoo bini aadmiya amba dadkan programkan daawanaya barnaamijkani in ay ogaadaan nooca dhiiggaagu yahay. haw ogaan oo quraato hadday dhibaata kugu dhacdo amba qof dhibaataysan in lagaaga shubo dhiig amba adiga dhiig lagaaga soo shubo haw baran. laakiin waxaad u barataa noloshaada oo dhan buu saameyn ku leeyahay qaab dhiiggaagu nooc uu yahay. raashinkaagaan idhi waxaynu idhi xanuunada ku dhici karaan nidhi waxyaabuhu ku fiican yahay waxyaabuhu ku xum yahay shaqooyinka uu ku fiican yahay ee ay tahay inuu doonto. daraasadaha haddaba haddii aan intaa aynu kaga baxno bal tilmaamaha kookooban weliba aadka u kookooban soo qaatay haddaan in yaroo scientific amba cilmiyana tilmaamno waxaa la yidhahdaa xagga
sidee bay dadku ku kala yihiin dhiiggan sidee ku kala badan yahay daraasaduhu waxay tilmaamaan nooca eeda dadka ahi 42 boqolkiiba weeye 42 boqolkiiba weeyaan halka dadka oodo ahina ay yihiin 46 bal adeegsay maad 46 waa o 42 waa e halka bida nooca bida ahi waa boqolkiiba 9 boqolkiiba 9 97 weeyaan saddexda soo haray waa nooca e iyo bida weeyaan saddex baa soo haray saddexdaas soo haray saddex boqolkiiba markaanu leenahay saddex baa soo haray waa a iyo b haddaba daraasadaha kale daraasaduhu sidoo kaleeto waxay tilmaamaan qolada dhakhaatiirtuna way arrintaa iyaga inooga aqoon badan dhiigga oo la yidhaahdo waa qaybiye oodu eeda iyo bida iyo eedii bida intaba wuu siin karaa oodu halka eedu eediyo bida way siin kartaa biduna e iyo b way siin karaan iyaduna waysa siin kartaa bidu eedu iyaduna waysa siin kartaa e iyo b iyaduna waysa siin kartaa marka daraasadahaasa lagu ogaaday waxyaabaha aan soo tilmaamay waxaan ku soo gabagabeyneynaa brograamkeenan aadka u kooban waxaa habboon inuu qofku ogaado xidhiidhka dhiiggiisa iyo dabeecaddiisa xidhiidhka dhiigga uu leeyahay iyo xanuunada uu halis noqon karo xidhiidhka dhiigga nooca uu leeyahay iyo raashinka ku habboon xidhiidhka dhiiggiisa ka dhaxeeya iyo shaqada ku habboon ee tahay inuu doonto taa macnaheedu ma aha 100% theoriska iyo waxyaabaha aynu akhriyayna waa sax maaha waxa saxda waa qur-aanka iyo sunnaha nebiga laakiin waxan waa daraaso dad baa sameeyey waanay noqon karaan sax waa noqon karaan qalad laakiin daraasaadkan dad baa ayaa sameeyey oo in badan ka sameeyey oo waqti badan ku bixiyey soona ogaaday inta badan researchyadana waxa weeyaan research marka la sameynayo amba daraaso waxbaa lagu soo ogaadaa xog baa lagu aruuriyaa waxaa la yihahdaa experimental baa la sameynaya experimental means waxa weeyaan wixii baa waa la baarayaa wixii marka amba sax buu noqon karaa amba qalad buu noqon karaa marka waxaan rajeynayaa insha allah waxaan rajeynayaa in dadka ina daawanaya ay baaritaan ay sameeyaan waxyaabahan aan ka hadlayan soo bandhigay inay sax yihiin iyo in kale qof walba waxa laga rabaa maanta buwaag baad helaysaa laga qoray blood typeka iyo xidhiidhka uu leeyahay qofka dabeecadiisa iyo noloshiisa waad google garayn kartaa meelo badan baad ka heli kartaa intaasoo buug ayaa waxaanu ka soo diyaariyey oo aan soo akhriyey meelo badan baan ayaa reference aan usoo qaadanay marka qofka brograamkan nasiib u hela inuu daawado asaga ayaanu ka rajeyneynaa inuu isagu sii baadho aqoon dheeraad u yeesho oo aanu noqon dhiiga kugu jiraa in markaad u baahatid in lagugu shubo unaad u baahan tahay laakiin waa waxaad ogaan doontaa dhaqankaaga dabeecadaada wanaagsan dabeecadaada xun nasiibkaaga raashinka kugu habboon ee jidhkaaga ku habboon waxyaabaha aad tahay inaad ka afford garaysid amba aad ka dheeraatid ee xanuunada kugu dhici kara marka daawade intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkaasi intaynu mid kale isugu iman doono oo kanoo kale ah waxaan idinkaga tegaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu